ma tahay qof 2024 waqtigii ka dhammaaday ma tahay qof 2024 uu joogo oo waxba qabsanin ma tahay qof 2024 aanan noloshiisu wax income soo galin ma tahay qof 2024 aanan isbedel samaynin haddii aad tahay qof 2024 isbedel aan samaynin waxaan ku hayaa talooyin ku aadan in aad isbedelkan samaysid 2025 halkeena maanta wuxuu ka hadlaa 6 talo ay ku socoto qof ka raba inuu isbedel isku sameeyo 2025 bedel koowaad bedel fikradahaada haddii aad ahaa jirto qof negative ah opposites dadka markay dadka la sheekaysanaya bulshada ku dhex jiro haddaad aad qof opposite ku ah wixii la sheegaba cagsi wax ka hor imaanaya sheegayo fadlan bedel fikirkaaga waxaa ka dhigtaa positive adduunyada lama jecel qof negative ah waxaa qiimaysa hadbo xaalad aad ku sugan tahay xaalad aad ku sugan tahay haddii la rabo dadka agaarahaaga joogaan qaabka ee rabaan lagala hadlaa laakiin haddaad tirahdid fikirkeyga cabira oo ani iyo qaaska oo negative-ka ah dadka inta badan fikradaha negative-ka ma jeclo adduunyada dabeesha meesha u socota ala la socdaa isku day marka fikirkaaga inaad u bedeshid fikradaha dadka levelkaaga ama asxaabtaada nooca fikir ay iyaga u baahan yihiin inaad adigana aad samaysid labo bedel asxaabtaada 2024 haddii aysan asxaabtaada wax kugu soo kordhinaynin oo si weli sidaada aad tahay waxaa lagaa rabaa 2025 inaad bedeshid asxaabtaada oo aad samaysid asxaab cusub waayo asxaabtii hore noloshaada waxba kuma soo kordhinin 2024 way ku dhaaftay waxna ma kuu soo kordhin asxaabtana horena wax ma ka dheefin isku day inaad bedeshid asxaabtaada sameyso new friends asxaabta cusub oo nolosha la jaanqaad waxaa suurtagal asxaabtaada cusub inay isbedel noloshaada ku sameeyaan asxaabta cusub yaa ka dhiganay mar walba waxaa saaxiib ka dhigataa qofka aqoon sareeyo dadka ka aqoon liita dad saaxiib ka dhigatid noloshaada wax kusoo kordhaya ma laha wixii u horseedayaan keliya noloshaada inay nuqsaanto qodobka saddexaad bedel environmentalka haddii aad ku nooleed magaalo magaaladaas aysan saamixinin in noloshaada isbedel badan ee samayso ku samee isbedel inaad biicada aad bedeshid waxaad bedeshaa magaalada markaas aad joogtid aad magaalo kale ka duwan magaalada aad markaas ku nooleed ama environmentiga aad ku baashaashid 2024 environmentiga waqtiga kaa dhumi environmentiga aad ku baashaalaysa environmentiga wax isaga dhuminaysa waqtiga dhan bedel waxaad ugu bedeshaa environment wax aad ka faa'iidaysid laqadaa tirahda maalin 90 environment waxaa fadhiisanaa oo fadhi ku dir iyo war iyo sheeko iyo xal lagu jiro wax noloshaada kusoo kordhaya ma laha daa kugu socoto waqtiga kugu socdo beri waxaad tagaysaa adoo sanado badan jiro 30 sano adoo jiro adoo 40 jiro oo waxba qabsan isku day environmentalka wuxuu bedelaa shakhsiyadda qofka haddii environmentalka uu yahay environmental oo shakhsiyaddaada waxba kusoo kordhinayn please bedel environmentalka environmentii keliya kuma xiran waddan inaad ka baxdo waddan kale u guurtid waxa waaye locationka adi aad ku baashaashid dhalinyaraad tahay meel asxaabaa leedahay asxaabtaada meel kula baashaashaa bedel areada asxaabtaada aad kula baashaashid sameyso new area dad wax ka faa'iidaysid dad wax noloshaada kusoo kordhinaya dad noloshaada wax kusoo biirinaya sameyso area wax laga faa'iidaya aad laakiin haddaad tagtid area maadan maalayacni waxyaabo maalayacni laga doodaya siyaasad waxa aad dan kugu jirin aad dhaqaale markaa soo gelin haddaad environmentkaad isku mashquulisid noloshaada waxay ahaanaysaa sidii ay ahayd 2024 bedel 2025 environmentalka afaraad isbedel ku samee income-ka dhaqaalaha adiga kusoo galaayo 2024 haddii dhaqaale badan kusoo gelaynin 2025 isku day inaad dhaqaalaha adiga kusoo galaya shakhsiyan ee ka badato dhaqaalihii kusoo geli jira 2024 sidee u bedelaa adduunyadu wuu horumaray online business aa jiro isku day online business inaad samaysid online marketing inaad ka shaqaystid adduunyadu waxaa jiro online marketing laga shaqaysto waxaa jira waxyaaba la drop shipping aa jiro affiliate marketing laga shaqaysaa jiro affiliate ahaan u shaqaysanay ama channel YouTube oo furi kartaa ideal imaan kartaa waxyaabo oo noloshaada kusoo kordhinayo sameyso si income-kaaga u bato income-ka waxna waa income oo nolol maalmeedka ku maaraysid waxna waxaa loo yaqaanaa passive income haddii passive income kusoo gelaynin lacag oo aadan shaqo badan qabanin oo ID le aad samaysay oo ID-haas oo aad abuurtay dhaqaale kaa soo galaya qaabkaasoo kale dad samayn kartid samee passive income aa lahaa tusaale application aad samaysay waxaa ku qortay qarni academy play store-ka gelisay dadaa waxaa tiri ka faa'iidaysa koorsooyin free ku jiro waxaa ku xirtay monetization oo waxaa ku xirtay video adisa ku xirtay dadkaas videogaas ay lacag la'aanta ku fiirsanaya adisa ku xirnan adiska marka uu soo galo waa iska leexinaya ada maxaa ku socdo lacag passive income aa lahaa waxaa samaysay application aa samaysay game play la dheelaya samaysay application aa samaysay dad oo buujim dheelaya application aa samaysay ID la imow
ID markaa samaysa passive income ID-gaas ka samey beri wax waa aad iska fadhisid lacag ka sameynay game oo play la dheelayo samaysa sida bes oo kale dhalinyarada markay dheelaan iyaga waxay u maleeyaan free inay ku dheelooyiin laakiin adiga income ku socda income inta ka socda play store ka lacag ku siinayo marka ku fikir noloshaada inaad kusoo kordhisid wax loo yaqaano passive income maadaama 2024 passive income aadan haysanin 2025 waxaa noloshaada kusoo kordhisaa wax loo yaqaano passive shanaad baro sida loo maamulo carabkaaga 2025 la maroyaa carabkaaga control qofka saaxiib kule ee mataqaanid wuxuu yahay shakhsiyadiisa mataqaanid wuxuu noloshaada kusoo kordhinayna ma ogid wuxuu noloshaada ku dhimaa mataqaanid adduunyada dadka joogayaa la isku mashquuliyaa adduunyada waxaa la sameeyey nidaam dadka la isku mashquulinayo qof waxaa lagu soo diraa oo iska kaa dhigaya inuu saaxiibkaa yahay he is acting like as friend bad wuxuu isku daynaya inuu noloshaada sirtaada banaanka bixiyo maxaa samaysaa marka carabkaaga control maanta haddii lacag kusoo gashay don't talk anyone saaxiibkaaga kula socda xataa dhaqaalaha ha u sheegin qof dhan yuu ogaanin secret noloshaada haddii aad tiraahdo wax walbo noloshaada kusoo kordha daqiiqad walba waxaa la kulma waa sheega haddaad tiraahdo isbedel ku dhacaya noloshaada 2025 inuu isbedel noloshaada ku dhacda u baahan tahay guulahaaga iyo horumarkaaga hala wadaagin qof walbo dadka adduunka joogaan oo dhan horumarkaaga iyo guulahaaga waxay isku daynayaan inay burburiyaan saas darteed marka horumarkaaga iyo guulahaaga haddaa u baahan tahay carabkaaga control qofka kusoo ag fadhiisto adoo meel fadhiisid oo sheeg kuu bilaabo afkaa la galin maxaa ka faa'iidey maanta siyaasadda ka hadashay maxaa ka faa'iidey madaxweyne ma ihid madaxweyne ma naqanaysid waddadii oo dowlad wax lagu naqanayo ma ku jirtid in shacab iska masaakiinaa tahay afkaaga qabso siyaasadda galin maalayacna isku mashquulin jidaa fadhiisid banooniya maalin daldalantay energy kaa soo baxay energygaas haddaa mobile soo qabat youtube geshid oo aad tiraahdo war passive income u baahana nina ID kuu sheegay ID-gaasaad isticmaali kartaa waa kamar dhali kartaa laakiin haddaa maalin carabkaaga daldalantid aa war badisid dadka waa ku dhegeysanayaan dhibna ku imaana warka aad sheegaysid berina wax ma ka faa'iidaysid hadduusan dhib ku imaana xataa wax ma ka faa'iidaysid marka carabkaaga control marka aad hadlaysid qodobka lixaad ee ugu dambeeya qorshe degso 2025 you should have a plan haddaadan lahayn ma noolaa kartid baagamundaa tahay tusaale luqado baro adduunyada luqado badan la bartaa luqada maalin la u baahnaanay baagamundaa haddaa waxaa qabta maysto luqad baro luqad ingiliish baro carabi baro sawaaxili baro faransiis baro spanish baro germany baro luqado baro ismashquuli online gal luqada online waxaa rabaa luqad hebel dheh online dad niman diyaariyana jira already luqada online lagu barana oo free ah baro luqada online luqada maanta baratay khasaare ma qabtaa waxmay khasaare ma qabtid plan haddaad degsanin oo qorshe aadan lahayn waxaa arkaysaa adoo 30 sano jiro beri wax lagu leeyahay wadan cusub aad tagtay luqada ingiriis ma taqaanaa war ma ka saay haddaan soo baranaa shaqada heshay waa lagu yiri luqada ingiriis ma taqaanaa dad shaqada luqada lagu ciilaa jiro shaqada dad ku geynay ku leeyahay ingiriis ma taqaanaa afcaaliga ma taqaanaa luqada lagu xujeyna beri waxaa leeyahay luqada ana ma soo baran waa lagu leeyahay hadda luqad baro marka luqad iyo waxyaabo aad noloshaada oo aad kusoo kordhi kartid baro xataa online marketing baro forex baro stock marketing baro cryptocurrency baro waxyaabahaas oo dhan qorshe u degso dada ku fashilma dadka ku fashilma ha fiirin isku day adi inaad ku guuleysan kartid wax walbo lagu fashilma qof ku guuleysan karo marka waa maasantiin intaas ku soo koobo talooyinkeena wixii talo iyo tusaale u baahan tihiin ama 10 asleedii mawduuc dhakhtarka ka soo hadlo comment kana garab salaam alaykum